abwaan cabdi qays oo ku xiran qol aan daaqad lahayn xabsigana ku jira 1982 ayaa wuxuu iska dhigayaa inuu yahay raadiyo dadka bannaanka qolka joogana dhagaystayaal markaasuu tirinayaa maansadiisii geedibaabo sidoo kale qof kastoo Soomaali ah waa maqlay heesta gabayga yeerayo guuxan baxayo iyo gurbaankan awgeedi shaambooba lagu guuriha haddaba maanta aan ka sheekaysano maxay ahaayeen nimankan sheekooyinka Soomaalida ku xusan ee caadada xunna loogu soo halqabsado sidoo kale bocor bacayr baa isna jiray duulkaas ayaa lagu sheegi jiray duul caado ka dhigtay in gabadh walba oo aroosad ah ay habeenka ugu horeeya ama asbuuca koowaad iyaga jidaysteen inay ku hormaraan haddaba sheekadan maxay ahayd se ka jirtay meelo kale mana ku xusan tahay caadooyinka kale ee dunida haddaba sheekadan maxay ahayd mana ku xusan tahay caadooyinka kale ee dunida nabad walaalayaal iyo wadayaal waa biladaye gambarkaaga soo qaado geedibaabo boqor buu ahaan jiray baa la sheegay waxaa la yiri buurhakaba ayuu madax ka ahaan jiray kuwa badan ayaa ka mid ahaa kooxdiisa sida dibkabaalo arbowheero garbadiiro iyo kuwa kale marka la guursado ayuu dhihi jiray gabadha aroosada ah ii keena habeenka koowaad si ay tafiirtiisa u badato waxaa la sheegaa gabar arrinkaas ka dhiidhisay oo walaalkeed aad ugu calaacashay inuu walaalkeed dhiiga qaaday oo uu dilay geedibaabo waxaan uga socdaa sheekadan mala awaal iyo caado waxay tahayba waa wax fool xun ma ogi midka laga soo koobiyeeya asalkeeda Soomaalidase uma gaar ahayn ee sheekooyin tan la mid ah ayaa caadooyinka adduun weynaha dhan ku jira dhaqamo badan ayaa lagu sheegay inay jiraan niman kuwan sida geedi oo kala ah sheekadan habeenka koobaad waxaa loo aqoon jiray duqwaado senyoor oo Faransiis ah oo af Soomaalina ku ah xuquuqda sayidka ama jus berimay noctis oo Latin ah Soomaalina ku ah xuquuqda habeenka koobaad ha ka jireen caalamkaba wax cadeyn ah dokumenti sharci ah oo dhaxalgal ah oo rumeynaya jiritaanka sheekooyinkaas ama xeer rasmi ah oo cadeyn leh lagama helin ama wax dhaafsiisan sheekooyin la isku soo gudbiyo sheekadii Gilgamesh oo ka mid ah sheekooyinka ugu da'weyn dunida ka sheekaysa boqor xoog leh oo haystay magaalada Uruk 4000 sano ka hor ayay sheekadu xusaysaa Gilgamesh inuu aroosad walba habeenka koowaad isaga dhihi jiray aniga la isoo marsiinaya taasoo ahayd cabashada ugu badan ee ay dadkiisa qabeen iyaga oo ku duceysanaya inuu soo baxo mucaarad la yiraahdo Enkidu si uu u jabiyo Gilgamesh iyo arrinkan xadgudubka ah waxaa dhibay shacabkaas oo uruga ku beeray caadadaas xun taariikhyahankii Giriiga Herodotus qiyaastii 400 oo sano dhalashadii Ciise ka hor ayuu xusay in qabiil ku noolaa Liibiyadii qadiimiga ahayd oo la dhihi jiray Adirmahkide ay dhaqan u lahaayeen inay soo hor istaajiyaan dhammaan aroosadaha boqorka hortiisa isagoo ka xulanaya kuwii uu isaga kaga horeyn lahaa kuwii ay isguursadeen Itaaliyadii qadiimiga ahayd kacdoonkii Folsini ee 208 sano ka hor dhalashadii Ciise ayaa iyana lagu sheegaa kadib kacdoonkaas ka dhanka ahaa madaxdoodii markii ay ku guuleysteen ayay isla caadadii u adeegsadeen kuwii hore u maamuli jiray iyagoo gabdhihii madaxdii ku qasbay caadadii habeenka koobaad oo ahayd isla caadadii iyaga naftooda lagu dhibi jiray Scotland ayaa la sheegaa inuu boqorkii Malcolm III tirtiray caadadan taasoo muujinaysa inay caadadan ku jirto sheekooyinkooda waxaana la sheegaa inay xaaskiisa ka shaqaysay inuu tirtiro oo ay iyadu ka dhaadhicisay Switzerland sayidkii Maur qarnigii 15aad ee Switzerland ayaa waxaa jira diiwaan muujinaya Lord of Maur oo si rasmi ah u sheegan jiray xuquuqda bikranimada caruusada ama inuu qaato lacag bedelkeeda qoysaska badankood lacag bay iska bixin jireen laakiin kuwii aanan haysan wax ay ku bixiyaan ma lahayn doorasho kale Yurubtii dhexe ee looga yaqaanay caadadan duqwaad senyoor oo loola jeedo xuquuqda sayidka ayaa la sheegaa inay siinaysay ninka dhulka xukuma
awood ah inuu la seexan karo habeenka aroosad kasta oo ka mid ah dadka uu xukumo. Sheeko ayaa jirta ku saabsaneed nin iska dhigay aroosad inuu sugay sayidkiisa kadibna uu dilay. Dadkii oo aad ugu faraxsan ayaa ninkaas ka dhigtay boqorkooda cusub. Qabiilada hore ee Hindiya iyo Koonfurta Ameerika ayaa bikranimada gabadha iyagana waxaa qaadi jiray wadaadada ka hor guurka. Waxaa loola dhaqmi jiray sidii waajibaad ka weyn caado kaliya, waxaana sal u ahaa khuraafaad qoto dheer oo ku saabsan in dhiigga bikranimadu ka dhigan yahay wax la xiriira diini ama ruuxi. Waa biladaye ha iga herine isoo raac.